وهيك داوديال halka nala socotaan wali waa telefishinka S24 xaruntiisa magaalada Muqdisho markaan warar degdeg ah oo hadda soo gaaray waxa ay sheegayaan in markaasi Axmed Madoobe la duldhigay ciidamo badan isla markaana xaaladda magaalada Nairobi ay tahay mid aad u kacsan wararkii ugu dambeeyay waxa qolka warqabada ku jira oo lagu soo biiray oo inoo haya wariyahana Farxaan dawladda Kenya ayaa laba qodob u soo jeedisay hogaamiyaha Kyrgyzstaniska Axmed Madoobe isla markaana ku dhuumaalaysanaya magaalada Nairobi caasimada wadanka Kenya dawladda Kenya ayaa la sheegay in ay ciidamo dul dhigtay hogaamiyaha Axmed Madoobe isla markaana aysan jirin cid u gali karta iyo cid ka soo bixi karta intaba arintaasi oo la sheegay in dawladda Kenya cadaadis kaga yimid dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku saartay isla markaana dawladda Kenya xubno ay u dirtay Axmed Madoobe ay u sheegeen in labadaasi qodob ay muhiim tahay inuu fuliyo haddii kale ay ka dhalan karto carqalad weyn oo ku aadan in loo gacan kiliyo dawladda federaalka Soomaaliya kulamo saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Nairobi caasimada wadanka Kenya ayaa looga hadlay sidii Axmed Madoobe uu soo tagi lahaa magaaladaasi waxaana la sheegay in Axmed Madoobe labada qodob ay dawladda u jeedisay ay tahay inuu magaaladaasi ka tago oo dalka dibadiisa u aado haddii kale uu ku laabto magaaladii uu ka soo baxsaday ee Kismaayo dadka ku dhaqan magaalada Nairobi oo Axmed Madoobe u dhow ayaa sheegay in duqo ay haysato xaalad aad u adag maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis xoog soo saartay madaxweynaha wadankaasi William Ruto isla markaana la sheegay in haddii dawladda ay qaado talaabooyin ka dhana qaadka William Ruto laga cabsi qabo maadaama madaxweynaha wadankaasi haatan ay ku furan yihiin arrimo kacdoon ah oo dadka deegaanka ay ka cabanayaan dhaqaale xumo iyo sidoo kale sicir bar aad u xoogan haddii qaadka la joojina ay markaasi xaaladda ka sii dari karto wararka waxay sheegayaan in Axmed maalmaha soo aadan uu aadi doono wadanka Isudagga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale inuu ku soo laabto magaalada caasimada Muqdisho maadaama dawladda Kenya cadaadis xoogan lagu saaray isla markaana dawladda Soomaaliya William Ruto ay ku amartay in ninkaasi loo soo gacan geliyo siyaad u aragtaa in Axmed Madoobe dib loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya oo markii hore uu ka dhuuntay isla markaana dawladda Soomaaliya ay ku baadi goobayso deegaanada Jubaland aragtana la wadaag muuqaalkana share noo dhaw waa maasantiin